tactica kale la degayna waxa weeyaan in halkan yar la isku tuurtuuro duleedka gobolka Sool inamadii qoryaha siteen magaalada iyo wixii galayba ay dibadda u soo baxaan deetana la kala xidho magaaladii ay noqoto zero qori arrinta quraata ee imika taliska guud taani wasaaradda amuraha gudaha Muuse Biixi iyo golaha waa ay habeen walba la iska qoomameeyay leeyahay the biggest mistake dhacay ee Somaliland samaysay waxa weeyaan cid waliba ha dhageysato anigu waxaan idin keenay sirti madaxtooyada waa arrintii garaadada in loo fasaxo oo ay la galaan ciidamo danab iyo gorgora hadda fahanteen danab iyo gorgora waa ciidamada danab iyo gorgora samida fahmi garaad kasta wuxuu wateybay ku leeyihiin hub iyo ciidamo iyo inamo miiskii markii la isku qabsaday qofba qof canaantay dagaalkii dhacayna waan idin ka sheekayn doonaayo dee waa la iswada xanaaqo waa la iswada lahay golaha wasiirada qaar baa aamusay miiska saraakiisha ummadii oo dhan halkan madaxtooyada madaxa la isla wada galo in telefoon ku jirto conference iyo in dee fadhidayda nuux wuxuu eedeeyey Muuse Biixi nuuxna arrin baa lagu eedaynaya ciidanka Somaliland waa madaxa la isla galay 17,000 oo ciidan ay haayeen ayaa Somaliland ay shacbi ahaan u bixisaan mushaar 17,000 17,000 ayaa qof walba in la siiyo ay ahayd $100 adagaysan iyo 20 markii horena $80 baa la siin jiray lixdii bilood u dambeeyay waa 120 17,000 adagaysan 17,000 kii la ala meel ay mareen waa la waayay meel allaala meel ay mareen waxay hayaan beel dad gurigan Iceland ku yaala ee nuxtaan leeyahay dabaqyada jaamacadda Hargeysa ka dumisan shaariqa bacmushtar waxa la yiri reer samatar ina shaqo la bari uga tagay mushaar xashin biilka ku cunaa waxa la yiri harta sheekha ayaa biilka lagu qaataa waxa la yiri xaraf baa biilka lagu cunaa waxa la yiri gabiil ee reer dalal iyo reer xareed iyo Jibriil Abubakar wajaala qaar reer lagu biiliyaa xiraawr Jibriil Abubakar ka degan baa iska qaataa waxay ka tankay dhowr ciise muuse ku jira baa ku jira mushaar buu noqday kala soo hara nimankii saraakiisha ay magacyadooda iyaga la garanayo hebel iyo hebel ah halka saraakiishu ka dhimatay tabaqaysa in yaro infantry oo isku dhafana ayaa tabaqaysa aan idin ku dhaarto ciidankii waxa dagaalamaya socdaalka waa la qaaday ciidankii badda waa la qaaday gawaadhi cusub oo kurta laga soo gooyay waa la qaaday gawaadhi qabaala oo bacmushtar ahay oo maar lahaa dib baa loo iibsaday waa la qaaday hangarada oo maar ku jiray waa la dib loo oo maar baa laga kaashkariyo leeyahay naamaha waa la qaaday waxa ku buraysaa leeyahay meedka dhaawaca cuntada dadka saanada xun baa loo baahay gaari hadduu kharaabo ka kale inay isla socdaan waa la qaaday habeen walba Hargeysa iyo Burco waxay idin dhaafaya wax lagu darayo shaqo qaran ciyaal hore loo eriyay ayaa la yiri telefoonkaaga baa la soo helay aadar maadiman odayaashii hore qaaxay dagaalkii 8 ka qayb galay baa la isweydiinaya hadaa waqlaysa dagaalka ku xiga waxa la yiraahdaa talaya macawislayay weey jamhuuriyadii wallahi inaan jirin jabhada dagaalamaya wallahi idinku dhaaf waxa haray talaya sheekh Isxaaq ay dagaalkaasi hadduu sharci socdana summa wallahi waxay idin arki doontaan philosophy ku salaysan talaya sheekh Isxaaq 17 kuna horaan been baa niga horeyga moodisay ina jabutaawina waa kii sirta idin sheegay laakiin miiskan saraakiisha la isku qabsado la islaam umuusan anigu miyano galcag ma shubayay weydiiyay isaguna yiri dagaalka muusana eedu yeeshay waxay noqotay garaadada soo daayay wasiiradiisi baa kula taliyay garaadada la soo daayay laakiin xusaan fadhiistay ciidamada raacay hadii la hor istaago marka wax laga baqday carqaladu inay dhacdo garaadaduna ciidankii bay gudaha la galeen dalkan caadi u dhigaysta maanta loo talay golaha wasiirada la isla wada fadhiyay madaxa la isla galay caawna inta yar baa dhimatay faa'iidadii ugu weyneyd marka iyagu doonayaan inay ka dhaxarkaan ay keenaan waxa weeyaan dagaalka in laga dhigo Puntland iyo Soomaaliland
dhulbaantii cadhoonayana la yidhaa guryahoodii bay ku yara dabaaldegayaana markay xaalad burburaan ergaa loo geli doonaa odayaashii mission accomplish missionkaasi u dhammaatay wax puntland oo dagaal gashayna ma jirto waxaan idinku iri ciise maxamuudkii baaba diidan garow in laga diiwaan geliyey wiilkii bahdireedna bartan u fadhiya ciidamadii puntlandna jug baa soo gaadho waa beelo qoriya kala sitaa inaad yaanana bartan u fadhiya intaa yare miidiyaha iyo lacagtaa yare la qaybsanayo ayaa qalooyin dee almacnaw qadiyadii waddo yimaadeen habtinimo ah oo isla durugta ceebtii baa idin raaci doonta qoladii ugu yara ficilka badnayd baanay u yara badayeen cumar maxamuudka lo odhan jiray iyo dhowr warsangeliyo nuuxtaani eriyey oo isla ciidankii nuuxtaani hore ahaa ulahana dhaafo iska taga intiiba caawa halkan la isku hela saaka maanta halkan la isku yara ereriyey intaasina iyadaa soo doonatay eriyatay halkana 3 baa laga dilay halkana dhowr meeday qaatay waxaa isku itaalo ayaa labada dhinac baa qaatay laakiin halkan 3 qof baa dhintay iyo dhowr dhaawac halkana dhowr qof iyo dhaawac baan ayaa tegey maqlaysaa nimankii xaysaystay baanay ku soo dulhabsadeen dam ee ka soo durkay xagga tukarada ka yimi aan idin sheegay madaxa iskula wada jireen cali barre iyo kuwii kooxdii ayay ku dul waabariistay markii TV-ga la duubayay roonda kala iyadana timi ee sidan la wada lahaay xataa kamaradii ku dhaceen la kala yaacay ee ka kale ku daba gabanayay sidoo islaada cali barre xabada isaga dhig ku daba dhuumanay markiina halkii bay dhacday adoo marka halkaasi saaka wax dagaal oo weyn oo aan dilayay waa la isku habsaday oo baahay iyo Puntland baa timiya jiya timi maya Somaliland kalsooni ay Puntland dagaal aynu ku wajahdo Puntland ma dhacayso adoo way tii dhulbaanta taagan halkan oo carro dhulbaanta guusha Somaliland la idin sheegayaana waa dhulbaantu ah carradana dhulbaanta lagu joogo Puntlandna dhulbaanta lagu weeraray adoo fahanteen marka wadada la maraya waa dhulbaanta jidka meedka la soo marinaya waa dhulbahante dhaawaca la marinaya waa dhulbahante madaafiicda labada dhinac shaqaynaya suugaga labada dhinac shaqaynaya hubka waqooyiga iyo bari labadaas u kala yahay marka sidii wada caraarteed buu galiyay hubkii ugu badnaayay dhulbahanta qabsaday ee laas caanood la geeyay waatii maamulka Puntland lagu dhisay 96 dhulbahanta iyaga dhisay hubkooda xad majority halkaas u yaala taqlaysan hubkii gobolada Nugaal iyo bari oo dhan bartaas la dhigay daarood wuxuu lahaan halkaas la isugu keeno mareexan sidii loo eriyay barba xagan yimid oo maamulka Puntland dhismuhu la lahaa Morgan bartaas la soo galay dagaalkii hawiye iyo daaro xoolaha hubka ugu culus Puntland baa la soo galiyay you must be stupid reerka boowe ka caqli badan safta waxa lagu siiyay hubka diiradda casriga u wada haystaa waa burcadbadeed iyaga inta boqolaan la dhinac ka diraan dunidana maraakiibta baadhanayay dollarkana qandala kula soo noqonayay haddana qandalaas ku qaadanayay waa well educated عقلك محمود سليمان ما ندقال على بوق مرة بعد يقلب تو دبور بيسو تميا لكن السومال لان دقال إلى قليل ما تشرت بتوان ما تشرتو هذه فيه الريادة كلا حسوقي ما تبي من يصير قرادة يدك كلا ليني بتلان أنت هالكاب بيبيع كارا كلا صاقة شو أيام دقال كي أريد يجيله لو ريتشري لو رورنا السومال لان تلو بكل يرتب بتلان يهذا أبو حصاه بين أي هيسطو وحيسنا قلنا ما تشرتي وكادكتي laakiin Somaliland dhiiran mayso iyadoo dhulbaxanta dhabarka ka joogtay caruurtoodina xasuuqday inay ku dhiirato Puntland hal shay waan idin hubaa hadaa aqlaysan way jeceshay ciidanka Somaliland leena Puntland baa islaynaysa sabayd bay helaan geel bay helaan oo cadow shisheeye dawlad kale inagu soo duushay waa dalkiiba invasion lagu sameeyay baa loo arkaa fahanteen wala inay marka abdaan dawladiisan baa bilaabmata nationalista la kala qaraacdo labada dhinacba ciidanku ay jecel insaanad badan bay helaan dhaqaale helaan xoolo helaan dhanka kalena xabadda ma jirtaanku tan dhulbaanta ka kulul inta kastoo ma jirtaanku wax dilayo laynayo haddana taa way ku yara ordaan ana fahantan marka waxaan idin dhigayaa dhinacna u hilin maayo waxaan 10 weeye cilmigu dhinac ma laha daraasada psychology-gu dhinac ma laha ana waxba dhinacaynay marka Puntland dagaalkan Soomay galin laakiin qoladan aan rabtay inay Puntland ayso saddexdii inanay warsan galiya inanka ka carooday iyo saddex Xamar Maxamuud ayuu leeyahay waa Puntland baasukayaal bay haysataa shilkayaal dhumuusa uga dhacaan bay haysataa dhowr iyo toban hubka diiradda la imika laga qaylanayo Puntland BSF gabigeeda hubkaas ay haysataa qurcadbadeed barta ka tooganaysa haddaba aysan qolada ka hub casriyaysan waa Puntland malasna labada dhinac saaxiib bay laahay labadooduba waa nalif bay dhiibi jireen labadooduba ogaadeen bilaad ku qaadi jireen haddaba aysan inta malasna way u sinaayeen isagana mar intii isku dira marna Addis Ababa wada yeeri jiray imaaraadkan way wada boobaan
iyadoo xamar baa